naagtan xaqaad gurigan ku leedahay in la eg ay ku leedahay ma naag booyasa yaa leedahay kula xaq waay aniga naagtan booyaysa maaha waa sida adigoo kale waa xaaskeyga ya ha canugan yarni waa canugeeda aniga minisha ayaan aroskan u diyaariyey adigana waad ku dheeshay maxaad samaysay wax fiican ma samaynin war manisha nin baa qabo gabadhayda naagna qaba sidee ninkan loogu diray adii jinni maa kugu dhacay ninkeeda ii sheega bal idinkaadi weydiiyeen walaale aniga ninkayga meel kasta uu jiro waa ninkayga minisha arooskan ogolow haddii aad diididna gurigan ma joogaysid way joogaysaa gurigan gurigan kama tegayso iyow joogaysaa adiga may kuu joogaysaa mise aabbaha maanta ninkayga madaxaaga ayuu ii dharbaaxay isagoo weligiis gacanii qaadan adigana gurigan iima sii joogaysid waan ku burnayaa maanta laga bilaabo gurigayga ma joogaysid soo baxnaya soo bax maya baisiida soo bax isiida soo baxnaya gabadhan way joogaysaa gabadhan way joogaysaa guriga aaba maxay ku joogaysaa aaba maxaa idinka dhexeeya naagtan ii sheeg wixii idinka dhexeeya waa daynaye aniga kuu sheegayo naagtan inta xaq aad gurigan ku leedahay in la eg ay ku leedahay ma naag booyasa yaa leedahay kula xaq waay aniga naagtan booyaysa maaha waa sida adigoo kale waa xaaskeyga ya ha canugan yarni waa canugeeda dumaashi khaladkan dhacay ninkaaga wax lukas ku leeyahay mal anigaas qoortaygu jira anaa ka dambeeyey arigna saanay u dhacday dumaashi sheekada horta intaasay ahayd saasaasna asku soo guursada khaftaan marka caloosha iska dhuusa tartiibka khaftaan walaal milisha markii aan waddada kaa soo wadanaya een gurigaygu kagaanay een dharkayga kuu gelinaya een jikadayda iyo gurigaygaba kugu aaminay maxaad iigu sheegi waysa adiga inuu ninkayga ku qabo ood kasiinkiila xiriirsataan ninkayga ku qabo ood kasiinkiila xiriirsataan maya maxay tahay qiyaamo layaa tahay haylaadin horta adiga sidaadabo aniga waan kuu soo samray intaan kuu soo samri karo weliba adigoo madhalaa ayaan kuu soo samray oon kuugu soo dulqaatay aniga wax walbo subal gabadhaydi adigaa qaylinin tartiib runtii wiilkayga khalad ma laha gabadhaanna khalad ma laha adigana khalad ma lihid laakiin maantay hadal inaan kuu sheega aanan rabin ayaan kuu sheegayaa haddaan runta kuu sheego wiilkaygu ma dhala ma aha adiga waayo qofka ma dhashada ah runtii dhowr mar ayaan doonay in aan kuu sheego laakiin waxaan is yidhi qofkaan haddaad u sheegtid amay niyadda iska xumaysaa oo dhibaata ka soo gaartaa runtii wiilkaygu ma dhala ma aha wiilkan asiga ayaa dhalay aniga ruuxayga waxaan ku idhaahday maandhow naa kala guurso si aad carruur aad u dhashid asigana wuxuu gu dhihi jiray carruur waan ka maarmaa laakiin kala gal ma ka maarmi karo noloshaydaa ku xihan marka gabadhaydii nin sidaas aday kuu jaal ma ku khiyaanaya gabadhaanna waa gabar aad u wanaagsan canugeeda curadka ahaa ayay adiga dhabtaada saartay si aadna u dareemin adiga inaad ilma la'aan tahay sidaasay kuu siiday kaajal maadaamaan qalad kaa galay qoftaan ma bixayso intay qoftaan bixi leed aniga iska baxaayo okay canugaygana aniga u raacaa aron axsan markaan iska tageena ismaaciil agtiis seen yeeleenahay markaan iska tageena soob nakeen عارون شلمبوت أو طبيب مع الباكور تذا دقن إسماعيل أنت وتجين مركة هورا أو طبيب سلامين أي حاول وأكو سلامني ما إيه ورما واحد بقى ما جرى إيه شيء ويلا شيء دي ما واحد ما جرى أديك أنا مركز كده
dadkoo dhan way caafimaad qabaan maya waxaan u malaynayaa inaan war iga qarinays ii sheeg wixii jiro dhibaato ah maya wata babi macalbaa koortaa ba isku tegi wax dhibaato jira mal waayahayna keena guriga gala raashinaan ii diyaarinayo Okay. عرب أذر تشارلز برونسون ما هو نكاس كلجينا صور دوما رفتناي والله لكن نفتي سوى ساعة مرة مصور شايلة دعدي سيدي أور هينا يهوك يا رسمي